السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا أخيارتا ملك السود ندك جوكتين halka nagala socodin waa xasiliye media magacaygu waa Maxamed Ali Ahmed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idin soo gudbiyo qisadaani aad u quruxda badan waxaan rajaynayaa muuqaalkaani inaad like saartay haddii halkan ku cusub tahayna subscribe noo saar aad u mahadsantihiin qisadaani waxay ka dhacday dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga gabar Soomaaliyeed ayaa jeclaatay wiil ku noolaa magaaladaasi wiilkani wuxuu ahaa wiil Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay qurux sidoo kale wuxuu ahaa wiil aad u shaqeysta wuxuuna ku shaqeysan jiray mootada loo yaqaano bajaaj wuxuu ahaa wiil naxariis leh gabdhaha aad ayuu ugu naxariisi jiray maalmaha kamid ah gabadhaani ayaa soo raacday waxayna ku tiri waxaan rabaa inaad dhigeysid gurigaygii wuxuuna ku yiri $2 diyaar ma ka tahay waxayna u sheegtay inaysan haysanin wax lacag ah balse ay ka codsanayso inuu geeyo gurigeedii wiilkii maadaama uu ahaa wiil naxariis leh uu ka aqbalay wuxuuna geeyay gurigeedii waxayna ku tiri aad ayaad u mahadsan tahay wuxuuna u sheegay inuu ku faraxsan yahay intaas kadib halkii ayay ku kala tageen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa farji u furay maalintaasi lacag aad u fara badan ayuu helay kadib markii gabadhii gurigeedii keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u barakeeyay maalintaasi wuxuu yiri waxaan shaqeeyay lacag gaaraysa $98 waa lacag aad u fara badan wuxuu yiri wiligeygii intaan waday mooto bajaaj lacagtaas ma aanan shaqeynin hal maalin aad ayuu u farxay nafsadiisana wuxuu ku dhiirigeliyay inuu shaqada joogteeyo sidoo kale dadka masaakiinta inuu u ihsaan falo si Ilaahay subhanahu wa ta'ala bedelkiisa u siiyo maalmaha kamid ah sida aadada ahayd maalin waliba waa soo kala xijiray wuxuuna ku shaqeysan jiray bajaajtiisii maalmaha kamid ah asaga oo u soo kalahay bajaajtiisii wuxuu la kulmay gabar meel taagan markaas ayuu weydiiyay xaaladaheedii waxayna u sheegtay inay hooyadeedii ku xanuunsan tahay duleedka magaaladani aysan haysanin wax lacag ah oo hooyadeedii halkan ku keento markaas ayuu ku yiri aniga ayaa ku soo qaadaya ee soo raac gabadhii aad ay u faraxday waxayna raacday wiilkii waxayna geysay goobtii wuxuuna u soo qaaday hooyadeedii wuxuuna u keenay isbitaalka mid isbitaaladii magaalada wuxuuna ku yiri Ilaahay ku aafiyo hooyadaadii waan ku soo booqan doonaa wiilkii waa iska baxay wuxuuna galay magaaladiisii gabadhii waxay tiri hadalkii wiilkii aad ayuu i saameeyay waana jeclaaday meel waliba waan ka raadiyay nambarkiisii balse ima aysan suurtagelin maalmaha kamid ah aniga oo socda magaalada ayuu i wacay wuxuuna igu yiri ma i taqaanaa waxaan ku iri aad ayaan ku aqaanaa maalintii waxaan raadiyay nambarkaadii wuuna ii suurto waayay aad ayaad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa garab istaagii aad ii muujisay hooyaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ii aafiyay waxayna u sheegtay inay shaqo ka heshay dowladda Itoobiya ayna ku shaqeyso magaaladani waxayna ku tiri haddii aad iga baahato wax garab ah aniga ayaa ku siinaya ee nambarkayga qoro wiilkii aad ayuu u farxay wax waliba oo ku saabsan dhinaca dowladda way u fududeyn jirtay ugu dambeyntii waxay ku fikirtay wiilkani ku soo badbaadiyay hooyadaadii waa inaad isguursataan waxayna ugu wacday gurigeedii wayna casuumtay unto aad u qurux badan ay u sameysay waxayna u weydiisay xaaladihiisii wuxuuna ku yiri anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo iska qaraabta magaaladani wuxuuna u sheegay inuu dhigto jaamacad wixii soo galan halkaas isaga bixiyo gabadhii waxay ku tiri jaamacadaadii aniga ayaa ka bixinaya wiilkii aad ayuu u farxay wuxuuna u sheegay bajaajtii uu ku shaqeyn jiray inuu lahaa qof kale aadna looga dhibi jiray balse asaga oo dantiisa fiirsanay ku shaqeysan jiray gabadhii waxay ku tiri ma shaqeysan kartaa wuxuu yiri waan shaqeysan karaa waliba 100% waxay ku tiri waxaan ku soo qaadayaa bajaaj useeb ah aad ayuu u farxay maalintii labaad wiilkii waxay u keentay bajaaj useeb ah waxayna ku tiri furahaadii hoo adiga ayaa iska leh ii noolaaw
wiilkii aad ayuu u farxay wuxuuna xasuustay wanaagii u sameeyay gabadhaani inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu bedelay khayrkaani. aad iyo aad ayuu u farxay wiilkii wuxuu helay garab istaag, lacagtii jaamacaddii waa laga bixinayaa, sidoo kale waxaa loo gaday bajaaj. farxadiisii lama soo koobi karo. wiilkii wuxuu noqday wiil Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay fursadahaas aad qaaliga u ah, wuxuuna ku noolaaday nolol aan caadi ahayn. 2023 wiilkii waxay isguursadeen gabadhii markii soo dhameeyay jaamacaddii, asagana waxay u raadisay shaqo dowladeed. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa u suurtageliyay. maanta waxay u shaqeeyaan dowladda Itoobiya ayaga oo ah nin iyo xaaskiisii, noloshoodana farxad adduunka ayay ku jirtaa. labada qof aan ka hadlayno waa Maxamed iyo Xamdi oo hadda ku nool magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaan rajaynayaa qisadaani wax far badan inaad ka faa'iideen. qisadaani waxaan ka faa'iideysanaynaa haddii aad samaysid wanaag, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kaaga bedelayaa mid ka khayr badan. haddaba waxaa loo baahan yahay inaynu is-aabino si Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu furo farji. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaynu aabino kaagan masaakinta ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa, mu'miniintu waa walaalo. wixii naftaada la jeceshahay walaalkaadii la jeclaaw. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa kuu barakeynayo. dad fara badan ayaa maanta waxay yihiin dad xaasidiin ah, wax waliba waxay rabaan inay naftoodii hesho, balse walaalahoodii inay la isticmaalaan ma jeclo. qofkaas looma barakeynayo hantidii uu haysto. haddii aad u baahan tahay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuu barakeeyo hantidaadii, sidoo kale aad hesho dhaqaalo aad u fara badan, waa inaad walaalahaadii u gargaartaa waqtiga ay kuu baahan yihiin si ayagana berito kuu caabiyaan. walaalayaal, waxaan rajaynayaa qisadaani wax badan inaad ka faa'iideen. muuqaalkaani like saar, haddii halkan ku cusubtihiin subscribe noo saar. aad iyo aad u mahadsantihiin. antaan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.